السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal weli waxaan sii wadnaa barashadii casharadii PHP variable constant and data types marka casharka waxaan ku baranaynaa sida loo isticmaalo ama loo declare gareeyo integerku waa muhiim waa variable oo loo isticmaalo calculationka marka la isticmaalayo PHP programming marka waa muhiim integerku waa tiro dhan sida nambarada soo socda camal marka casharka maanta arrintaas ku saabsan yahay marka sida halkan ka muuqata PHP data sida PHP variables waxaan ku kaydinaa macluumaadka kala duwan si loo programka u isticmaalo daatooyinka marka waxaan maanta ka hadlaynaa waa integer marka integerku wax kale ma aha waa tiro loo isticmaalo ama tiro programka u isticmaali karo tiro buuxda oo programka u isticmaali karo inuu wax ku xisaabiyo marka sida halkan ka muuqato ama aan markii horeba inii tusaaleynay string koodkeena PHP-ga marka hore waxaa muhiim inuu dhexeeyo labada shay halka bilowga ilaa kan dhamaadkiisa dhexdooda waa in koodkeenu ku qoran yahay waxa halkan uga jeedaan oo fartan aad mooday yellowga ku qoran waa follow ama comment programkeenu ma muujinayo maaragtay ma akhrinayo maaragtay inuu maaragtay markuu koodka run gareynayo ma akhrinayo marka waa waxyaalo comment anaga faalaha aan u isticmaalno si aan u ogaano waxa programkeenu uu sameynayo ama tusaale ahaan anaga aan u isticmaalino oo guide ah marka halkan wuxuu leeyahay qeex variable yiraahdo number kuna kaydi tiro ah oo 17 marka variable-ku PHP-ga waxaa qasab inuu wato calaamada dollarka sida halkan ka muuqata dollar number waxay la mid tahay 2017 tirada midigta ku qoran ayaan ku save gareynaa number marka line-ka hoos waxa ku qoran sida halkan ka cad ku qor bogga ama screen-ka waxa ku kaydsan variable-ka number kaasna wuxuu ku qorayaa variable-ka number-ka maaragtay in aan tusno oo display ku sameyno ama aan ku qorno screen-ka marka bal aan fiirino maaragtay waxaanu sameynaynaa demo oo ah inaan create gareyno file aanu ku tusaaleynayno sida loo isticmaalo PHP integer data waxaan abuureynaa file cusub magaciisa aan u bixino waxaa la dhahaa magaciisa waxaan u bixinaynaa integer demo .php marka waan abuurnay marka fileka waan abuurnay marka waxaan kusoo koobiyey programka yaraa oo meesha noogu qornaa marka waxyaalo yar ayay faylashku ku kala duwan yihiin marka waxaa muhiim ah inaan hagaajino oon clean gareeyo marka tirada number kana aan hoos soo dejino aan ka tirtino waxa sida halkan ka muuqata wixii aan hadda ku aragnay just slide-ka hadda aan fiirinaynay oo ah in programka PHP iyo PHP-gan u dhaxeeyo waxaana ujeedaduna waa comment uusan programkeena akhrinayn marka variable-ka number-ka ayaan waxaan ku geed gareynay 2017 marka waxaan rabnaa inaan display gareyno marka baan save gareyno marka si aan u aragno in maaragtay uu noo soo baxayo waxaa muhiim ah inaan halkan browserkeena ku aadino fileka magaciisu yahay integer_demo.php sida halkaa ka muuqatana maaragtay haddaan farta inii weynay xoogaa sida halkaa ka muuqata waa ujeedaan waxaa weeyaan 2017 ayuuna tusaaya marka tiradaasna oo ah tiradii markii hore uu programkeenii uu noo save gareynaa oo ahayd 2017 haddaan hadda tiradaa ku bedelo aan dhaho 2018 aan save gareeyo just waxaan tusaaleynayaa maaragtay sida aad u jeegarayn kartid programka mar walba hadaa rabtid haddaan hadda halkaa refresh dhaho tiradii waxay isbedelaysaa 2018 marka taas waxay ku tusaysaa variable-kii aan declare gareynay inaan ku guuleysanay in aan ku qorno screen-ka marka insha Allah casharada soo socda waxaan sii wadaynaa wali data types-kii haddii ilaahay yiraahdo waxaan is arki doonaa casharkan casharkooda mahadsanidin thank you